dhawaaqani waa muuqaal ka mid ah sawirro aanu maanta ka qaadnay suuqa caanka ka ah magaalada Burco ee Labaqow kaasoo dad badan oo ku ganacsada jidadka suuqaasi ay ka furfurteen meheradahoodii hawlgalkan ay ku furfurteen ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii maamulka dawladda hoose ee degmada Burco oo awaamiir cadcad ka soo saaray soo celinta bilicda magaalada hawlgalkan ay dawladda hoose u soo qalab qaadatay ee saaka kuwa bariistay suuqaasi ku yaala bartamaha magaalada Labaqow waa goob ganacsi waxa u soo foofa waagi baryaba boqolaal dadweyne ah inta badan dadka ka shaqeeya suuqani waa dalay maqaaxiyo shaah kabadho qaad hodheelo cunto macmacaanlayaal iyo waliba kooxo dada oo farsamada gacanta ku xeel dheer ayaa ku ganacsada suuqan waxa kale oo suuqani uu caan ku yahay xabkaha iyo faleemka oo lagu kala haadiyo isla markaana inta badan lagu kaydiyo geesta kale suuqa Labaqow waa goob ka mid ah meelihii Burco dhismaheeda iyo ganacsigeeduba uu ka bilaabmay waa xaafad soo jireena waxaana uu dhinaca ku hayaa suuqa Xamarta oo la rumaysan yahay in Burcada maanta jirta ay ugu daaweyn tahay waxaanad ku arkaysaa dhismayaal sii horeeyay oo dib u dhis lagu sameeyay iyo kuwa kale oo burburay masaajidka Saalixiyada oo la dhisay sanadii 1901 ayaa ku yaala waxaana kugu filan masjidkaasi taariikh ahaan cashuurta u xarootay dawladda hoose ee degmada Burco dadkan maanta la raray waxa ay ka mid yihiin kuwa bixiya hase yeeshee iyada oo aan dawladda hoose ka maarmin dakhliga soo xarooda iyo lacagta dadkaasi ay bixin jireen ba haddana waxa ay door bideen in la baneeyo wadooyinka waa kanduuqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad oo ka hadlaya soo celinta bilicda magaalada suurtagal ay tahay in sanduuqyada temporary-ga cashuur laga qaado laakiin waxaan eegaynaa haddana wixii laga qaadayay iyo waxa yeelada ay soo kordhinayso ayaa labadaasaan soo eegaynaa waxaan markaa noo hawl yar in maadaama cashuur sanadeed laga qaado bishii baa laga yaabaa in 40,000 ama 30,000 iyo wax la mid ah laga qaado waxaan door bidnay in ay qurux badnaato magaalada maayir ku-xigeenka magaalada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday ayaa isaguna waxa uu cadeeyay inay maamulkooda ka go'an tahay inay guud ahaanba raad ka tagaan maadaama bilicdii magaalada inaan hagaajinno laga doonayo horumarkii iyo maxay ahaydey developmentkii degmaduna la doonayo inuu kor u kaco qayb weyn bay runtii ka tahay in wadooyinka la baneeyo aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa dadweynaha reer Burco oo mar walba iskaaga garab taaga iyo dhammaan shaqaalaha dawladda hoose Cabdi Sattar Sabri TV-ga qaranka Somaliland Burco